kulanti wanaagsan saaxiib yaal soo dhawaada qaybtan waxaan ku eegi doonaa caawa ama aan diiradda ku saari doonaa ciidamadii ugu badnaa oo ka yimaaday dalka Turkiga ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo gaaray magaalada tan ee Muqdisho iyagoona saacadihii lasoo dhaafay lagu soo dhaweeyay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale ciidamadan qayb kama ahan ciidamadii hore ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya kuwaas oo la oran jiray EUSOM ama ADMIS. sidoo kale ciidankan hadda magaalada Muqdisho soo gaaray waxay qayb ka noqon doonaan dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab maadaama Al-Shabaab bilihii la soo dhaafay ay noqdeen kuwo sii xoogeystay isla markaana dib u soo rogaal celiyay deegaano iyo degmooyin badan dib u soo qabsaday. xogaas ayaan rabaa inaan kula wadaago haddii ay tahay markii ugu horeysay ay soo booqato fadlan waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ila channelka like in saaratid si aan u helno saaxiib badan adigoo kale like-tan waxay noo noqonaysaa dhiirigelin barnaamijka inuu meel dheer gaarin way ka qayb qaadanaysaa. ciidamadii ugu badnaa oo saacadihii lasoo dhaafay kasoo degay garoonka Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyay saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya. ciidamadan ayaa la filayaa in maalmaha soo socdo ay qayb ka noqdaan dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab. ciidamadan ayaa waxa ay ka yimaadeen dalka Turkiga isla markaana waxaa la filayaa inay qayb ka noqdaan dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab. ciidankan sidoo kale waxaa la rajeynayaa inay fariisimo ku yeeshaan qaybo ka tirsan gobolada dalka halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay Al-Shabaab ay gulufyo dagaal oo culus oo gaadmaha ay ka wadeen. ciidankan ayaa waxaa la sheegay in fariisimo ay ku yeelan doonaan qaybo ka tirsan gobolada dalka gaar ahaan Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. balse ujeedada ugu weyn ee ciidankan loo keenay ayaa ah in gobolka Shabeellaha Dhexe fariisinta ugu weyn ay ka sameystaan maadaama Shabeellaha Dhexe ay noqotay furinta ugu adag ee dagaal lagula jiro kooxda Al-Shabaab. iyadoo hadda Al-Shabaab ay dib u soo rogaalisay isla markaana ay dib u soo qabsanayeen maalmihii bilihii lasoo dhaafay fariisimo badan iyo deegaano iyo degmooyin badan oo Al-Shabaab hore looga saaray. balse ugu dambeyn dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markaan u muuqata in Al-Shabaab dagaalkeeda ay u soo jeesatay isla markaana ay rabto inay wiiqdo kadib markii maanta diyaarada ciidan oo dalka Turkiga ka yimaaday ay maanta soo caga dhigteen garoonka Aadan Cadde halkaas oo lagu soo dhaweeyay kuna soo dhaweeyay saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga. sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo saacadihii lasoo dhaafay isbedel amni ku sameynayay saraakiisha ammaanka ayaa waxa uu sheegay in ciidamadan ay qayb ka noqon doonaan howlgalka ciribtirka kooxda Al-Shabaab isla markaana ay la filayo in ay u guuraan qaybo ka tirsan gobolada dalka halkaas oo ay fariisimo ku yeelan doonaan. ciidankan hadda soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa tiradooda waxaa lagu sheegay inay dhanyihiin 3,000 isla markaa waxaana la filayaa in 5,000 oo kale askar ah ay soo gaaraan magaalada Muqdisho maalmaha iyo saacadaha soo socdo kuwaas oo iyaguna qayb ka noqon doona howlgalka ciribtirka kooxda Al-Shabaab. in ciidankan Soomaaliya loo soo diray ayaa imaanaysa kadib markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu bishii lasoo dhaafay kulan xasaasi ah oo dalka Turkiga kula qaatay madaxweynaha dalkaas Rajab Tayyip Erdogan isagoona madaxweyne xasan sheekh maxamuud hal madaxweynahaasi ka codsaday in Soomaaliya Rajab Tayyip Erdogan uu ugu deeqo ciidamo ka qayb qaata nabad ilaalinta Soomaaliya isla markaana dib u xureynta qayb ka qaata. balse Rajab Tayyip Erdogan ayaa markaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku cadaadiyay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu meesha ka saaro wax loogu yeero macawisleyda isla markaana aysan qayb ka noqon hadda kadib howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana markaas wax jawaab ah ka bixinin balse ugu dambeyn Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa hadda uu muuqdaa in uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud taladiisa iyo soo jeedintiisa u qaatay bacdama maanta magaalada Muqdisho ay soo gaareen ciidamo ka socda dalka Turkiga kuwaas oo rajeynayo inay qayb ka noqdaan howlgalka dib u xureynta iyo ciribtirka kooxda Al-Shabaab. sidoo kale madaxweynaha dalka Turkiga ciidamada Soomaaliya u soo diray ayaa la rajeynayaa in fariisimihii ugu badnaa ay ku yeeshaan qaybo ka tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe si qaas ah waliba gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe maadaama halkaas ay tahay furimaha ugu horeeya ee Al-Shabaab lagu dagaalamaya ayna tahay furimaha ugu culus ee Al-Shabaab mar walba lagu wajaho. si kastaba dowladda federaalka Soomaaliya hadda waxay u muuqanaysaa mid u soo jeesatay dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab taas oo dowladda Soomaaliya markaan ay rabto in ay guud ahaanba wiiqdo waxa loogu yeero kooxda Al-Shabaab isla markaana ay doonayso dowladda federaalka Soomaaliya in guud ahaanba Al-Shabaab dalka ay ka saarto deegaanada iyo degmooyinkii lasoo dhaafay maalmihii lasoo dhaafay Al-Shabaab dib u soo qabsadeen ay ka saarto meelaha ay hore ugu sugnaayeen inay ka saarto. sidoo kale ciidamadan ayaa waxaa la sheegay in ay qayb ka noqon doonaan howlgallada duqeymada cirka Soomaaliya ay ka furiyaan qaybo ka tirsan gobolada dalka kuwaas oo Al-Shabaab inta badan lagu duqeeyo laguna beegsado. si kastaba ciidamadan Soomaaliya soo gaaray ayaa maalmaha soo socda waxaa la filayaa inay u ruqaansadaan dhanka gobolada dalka gaar ahaan Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan iyo Shabeellaha Hoose balse ciidamadan ayaa la filayaa in furintooda ugu horeyso ay noqoto gobolka Shabeellaha Dhexe maadaama Al-Shabaab maalmihii lasoo dhaafay gobolka Shabeellaha Dhexe ay xoog soo saartay kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay Al-Shabaab ay la wareegeen deegaano iyo degmooyin badan iyadoo xusud mudan tahay in aadan iyo Al-Shabaab hadda ay ugu dambeeyeen ay soo qabsatay.
sidoo kaleete hiiraan iyadana deegaanka Moqori oo al-shabaab ciidamada xoogga Soomaaliyeed halkaas ay ka soo baxeen ayay dib ula wareegeen waxayna gacanta ku hayaan ilaa iyo haatan oo aan idin la hadlayo balse ciidamada xoogga Soomaaliyeed ayaa la filayaa in markaan ay dib u jeestaan isla markaana ay iska xoreeyaan kooxda al-shabaab oo maalmihii iblihi la soo dhaafayba dib u soo xoogeysaneysay isla markaana weerar ku soo qaadaysay fariisimada ciidamada ay ku leeyihiin gobolada dalka gaar ahaan hiiraan iyo shabeellaha dhexe wixii warar ka soo kordhay ciidamadan soo gaaray Soomaaliya qaybna ka noqonay howlgalka ciribtirka kooxda al-shabaab adiga ayaa ugu horeyn doona balse waxaan ka codsanayaa haddii ay tahay markii ugu horeysay ay soo booqato inaad subscribe dhaa channelka like-na saartid si aan u helno saaxiib badan adigoo kaleeta like-tii iyo share-tan barnaamijka waxay ka qayb qaataan inuu meel dheer gaaro si saaxiib badan u helana adiga ayaa qayb ka noqon kara